halkay ma doonaysaa saddex arrimood oo waaweyn, saddex arrimood oo kugu anfaca aakhiriya adduunba inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kuu sahlo. ma doonaysaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa darajo aad ka yeelato. ma doonaysaa in allah subxaanahu wa tacaala agtiisa uu kaa qiimeeyo, qiyaamahana raxmadiisa iyo carshigiisa aad harsato. haddii aad doonayso walaasheeda qiimaha badan, walaalkeeda qiimaha badan, waxaad ku dayataa nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam. nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam oo ilaahay uu yiri fattabicuu millata ibraahiima xaniifa, yacni raaca nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam milladiisa raaca, jidkiisa raaca. nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam ilaahay saddex arrimood oo waaweyn ayuu ku arsaaqay oo siiyey. ta koobaad, ilaah subxaanahu wa tacaala nabiyullaahi ibraahim waxa uu gaarsiiyey manzilo sarraysa, mansilatan ugu qiimo badan, mansilatu lkhullah. ilaahay khaliil buu ka dhigtay nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam. واتخذ الله إبراهيم خليلا. والله مركاد إله سبحانه وتعالى أد مراقبيسو حالت كستو أو أد سمينيسو مركاد إله سبحانه وتعالى أد إكتو حلقا إلهي أمرك أكارب من ليمد وحا أكاربنا مكتكتي إلهي أكتسا قيمة آيات كالليضحي. waliba waxaad ogaataa walaasheeda qiimaha badan, walaalkayga sharafta badan, qofku markuu keligii yahay, qofku markuu keligii sariirta u saaran yahay ama uu qol ku jiro ama uu gaarigiisa ku dhex jiro, qofku markay dadka kala tagaan waxa uu ku mashqulo markaa iyada ah waa waxaas waxa uu jecel yahay. nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam markii inta dabka lagu tuuray qaaluu banuu lahu bunyaana faalquuhu fi ljaxiim. markii nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam dabka lagu tuuray, markii uu muddo ku dhex jiro dabkii maalmo oo ilaahayna uu dabkii ka badbaadiyey isagoo dabkii ku dhex jira, dabkii markuu dambas noqday uu damay, ayaa dadkii waxay arkeen nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam oo ilaah subxaana wa tacaala hortaagan oo tukanaya. inta uu cidlaysnaa, inta uu bilaawo helka ahaa, wuxuu ku mashquulsanaa ilaah subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa. markaasuu nabiyullaahi ibraahim ka soo baxay dabka, markaasa aabihii baa wuxuu ku yiri yaa ibraahim nicma rabbu rabbuk. ibraahimow rabbigana aad qabsateed ilaaha ka dhigatay. nicma rabbu rabbuk ya ibraahim. allahu akbar. wallahi markaad ilaahay subxaanahu wa tacaala aad isaga cuskato, marka aad isaga isku dhiibto, marka aad jalla sha'nuhu markaad keligaa tahay, xitaa aad waxyaalaha isaga raali garaynaya iyo awaamirtiisa aad samayso, ilaahay jalla sha'nuhu manzila sarraysa ku gaarsiinaya. wakadalika ilaah subxaanahu wa tacaala ibraahim waa talabaad ilaahay wuxuu ka dhigay hogaamiye, ilaahay wuxuu ka dhigay qaa'id, ilaahay wuxuu ka dhigay mashhuur famous, ilaahay wuxuu ka dhigay subxaanahu wa tacaala mid lagu daydo. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. إله سبحانه وتعالى مركو إبراهيم اختباري، مركو إله امتحامي وكو امتحامي أوامر إيه نواهي إسلام كان إبراهيم أوليمد إلهي حقامي أيو كدقي، إلهي حول كدقي مثل قضيدو، إلهي كدقي سبحانه وتعالى أبو الأنبياء، أنبياء كديدان وكدقي دينا حنف، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. أي إلهي كو أرزاقي سبحانه وتعالى هدي أدونيسو إنه إلهي كو أرزاق إلهي أوامرتي سلا إمو، إلهي نواهي سنكفو حياله كاريبيو. وقدام الإله سبحانه وتعالى إبراهيم إله حكو أرزاق أولاد صالحين، إلهي جل شأنه وأسقن لحيا يعني وحنسي ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. إلهي أنبياء صورنا حتى نبي الله إسماعيل محمد عليه السلام ذرية نبي إبراهيم إلهي كدغي. هدي أدونيسو تفيرت هذا عائلة هذا إن إلهي سبحانه وتعالى كونا جيدي أولاد هذا إلهي جل شأنه أوامرتي سلائمة، وإلهي وحا كاريبين كفقه ولالكي أدون كنت عزك نولاتد، آخرة عزك نولاتد. إله سبحانه وتعالى إبراهيم وحا قيامها أحد كأبوه الرئي، وإلهي سبحانه وتعالى حلل يوم أركتي لباس كان أبو قرح بدن، وإلهي أقلني نبي الله إبراهيم عليه السلام أسقه مركز فريسانية، إلهي عرش جيسا لنا عمد كفريسانية نبي الله إبراهيم عليه
السلام ورالكي وحاصل إلهي بروح وكهل إبراهيم وحويا إلهي أيا اختبارات كيسيف كوكوليستي إلهي بو آد وجعلا إلهي بو أمر كيسا قادن جري وحو أحامد إله سبحانه وتعالى جل شأنه مركز تعابد وإلهي جل شأنه وأمرتي سلي مادة نوهيزنا كفو قاعدة آخري أدن بأدلي بانتي ذي أذونا سيدا سمي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.